awrka u horeeya ayuu ka u dambeeya farurtii ugu xidhay aasuu iska dhex seexday ilaahow jid u fur buu yidhi hadda isagii baa ku xidhay sidaasay sarkal u socdaan ilaahow jid u fur buu haddana halkaa la jiifaa liidarskeennu ilaahow jid u fur taana kumaba daraan iyagaa iska dhigaa inay yihiin kuwii xal hayo sarkalka un baynu ku jiraa war xaqiiqadu waxa weeye run haddaynu ku hadlayno historical facts baa jiro oo waa la isku keendilayaa innaga faruurihii la isku keen xidhay we have not found a solution wadahadalkan anigu waan joogay qayb baan ka joogay xirsi dadkii iyo maxamed biixi yoonis iyo dadkii ku jiray baa ahay ee intoo dhan la socday anu kii Jabuuti ee bilowga kala tagu ku soo baxay baan taagnaa waan joogay Somaliland waxay la timi war Turki nama dhaqi karto Turki uun ku xidhnaada ee adduunyadii kale aanu ka qayb gelinaba hadalku ah laba waxyaabihii horeynu ku heshiinay taa airspace-kana ahaatee waad jabiseene wax dee la isku halayn karo la kaalaya maxaa dhacday xirsi sidaa uu taabtay horta intii ka horraysay shirarka iyo wadahadallada Somaliland qaar ka socda oo xamar ka yimi kumay jirin heshiis baa yaallay hadalkaa markii Jabuuti la yidhi maxaan ku idhaahaa go'aanka weliba si adag baa loo hadlo anigu waxba ku dheeraan maayo taasoo iska aflagaadana ahayd markii waxaan socdeen aakhirkii waxa la isugu yimi Istanbul oo waxa lagu ballamay Istanbul in la yimaado marka maxay samaysay Soomaaliya waxay samaysay si loo joojiyo doodaas ayaa qaar Soomaaliland ruulkii hore jiray baa la jabiyay waxa la keenay 3 qof oo Somaliland ka socda ayaa la keenay Somaliland marka maxay samaysay tiimkii Somaliland waan joogay Maxamed iyo Xirsi iyo waa wada joogeen waxa la yidhi ma hadlayno ruulkii baa jabiseen ujeeddaa jirta aad u jabiseen dee ilaa aynu sidii hore wada hadal u wadno mooyee ma gelayno halkii baa hadalkii ku joogsaday funny thing anagu Hargeysa markaan ugu noqonay ma waxaad aragtay wada hadal la socdo oo dadku ku farxaan in markay burbureen Somaliland airportkii markii aanu ka degnay waa ka Maxamed xirsi waa joogay qaabilaadda Somaliland lagu siiyey waxaad moodaa in xurriyaddii baanu helay bagaa diideen waayo haddii aanay diidin delegationkaas haddaanu diidin xukuumadda qudheedu khatar bay ku geli lahayd waayo quursi baa yimi waxa yimi wada hadal baanu gallay waxbaan isku hadlaynay sidiiba haddana nalagu diiday marka anugu dhakhaatiir Egyptian oo aan wada shaqaynaynay baa dariiqaa la soo maray ambassador iyo halkaa ayay ku leeyihiin international hospital what happened maxaa dhacay dee dagaalkii baa burburay hadalkii baa burburay yeah it doesn't make sense so much laakiin dadka it made sense waxaan ka wadaa adeerow circle baynu ku jiraa anigu waxa u dan Soomaaliya Somalilandna u dan circle-ka sidii aynu uga bixi lahayn ee dadkeenna aynu uga saari lahayn ayaa muhiima anigu waxaan qabaa oo kale siyaasiyiintoo keliya ee xilka haya kuwa xilka haya uun haddii loo daayo sheekada mid waliba intiisaasu ku adkaysanaya oo odhanaya haddii aad samayso marka waxaan u socdaa madashan oo kale iyo intellectualska iyo inay maskaxda furaanoo sidii sarkalkaa awrtu ku jirto ilaahu jidii furma soconayso oo keliye waa inaynu inana ka shaqaynaa baan qabaa professorka waxaan weydiinayaa waliba aniga waqtiga ku yaraynaya laba arrimood inuu eego uu xirsi ka dhawaajiyey mid waxa weeye referendumkii Somaliland laga qaaday mid kalena waxa weeye constitutionka ku meel gaadhka ee Soomaaliya labadaas arrimood sidee u saameynayaan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waqtigana adiga waa maadsan tahay runtii arrin muhiim ah jirta oo ah haddaan rabno inaan horay u durjino debate ama doodda inaan horay xoogaa u dhixno waa inaan xoogaa ku dhiiran karno mararka qaar waxyaalo aan xoogaa ilaalin jirnay
runtiina waxa meeshaan soo gaarsiiyay waxa waaye inaanan awoodin inaan mararka qaar waxa controversialka ah ama xoogaa loo arko inaan xoogaa dib uga degno annagaan xataa akademiyada ku jirnoon siyaasadaynin arrinkan markay timaado waa sensitive waxa laga yaabaa inay dadku si uga damqadaan iska daa ayaa jiri jirtay intii muddo ah taasina waxba ma xallin arrinkii mushkiladiisii weli way taallaa arrinka Mustafa Hadaati sheegay horta Soomaalidu markii gumaysigu qabsaday xorriyad iyo midnimay doonteen meel kastay joogaanba markaad aragto documentiskii iyo himilooyinkii ahdaaftii xilligaa jirtay labadaa qodob ay ahaayeen waxaan rabnaa xorriyad waxaan rabnaa midnimo waxaa ka dhashay Somali State-kii Somali Republic la dhihi jiray Somali State-kii Somali Republic la dhihi jiray labada gobol ee isku timid kaliya uma dhalan we have to understand this labada gobol uma dhalan wuxuu u dhashay Soomaalida citizenship looga oo ay samaysteen markaa eegtana waa ku caddahay qodobadiisa dastuuriga ahaana waa ku caddahay wixii dumiyeyna waaba sidaas marka annaga waxaan we have one state oo labadii xorta qaadatay ka koobnaa oo meesha noo taalla tii baa naga duntay dhib weynaan kala gaaray waa run koonfur yaan dhihina the central government of Somalia kama garaabin wixii dhacay mararka qaarna uma garaabin xataa wixii horumaroo jira waxaasoo dhan waa run laakiin waxaa jira oo xaqaa'iqa in ayada kaliya aan hayno anu waxaan aaminsanahay Soomaaliland madaxdeedii inay khalad sameeyeen khaladka ay sameeyeen oo ahaa inay kaleem gareeyaan sovereignty-ga ayaa uga sahlanayd markaa cid ku haysatayba ma jirine inay yiraahdaan waa ka tagnay haddii markaa fakar bisil iyo wax rasmiya oo jira ay jiraan taasaa uga sahlanayd magaala madaxdu waa Hargeysa cigaal mid koonfurta oo ka soo qabtay waa dhihi kare waxaad ii tahay maaragtay vice president and so on we could debate on that haddana international community-gu 30 sano kadib waxay noo sheegaysaa an xaqiiqadana ay tahay sovereignty hadday Soomaali wixii republic la dhihi jiray xabadaasaad haysataan ku dhex shaqeeya ayada saasaan loo sheegayaa marka inaan sidaas annaga saan uga shaqaysiin lahayn ma super structure aan ka dhignaa ama confederal aan ka dhignaa ama hab kale aan ka dhignaa ma xataa haddaan kala baxayno waxaan u kala baxnaa sidii nidaamka caadiga loogu kala bixi jiray oo waxaana yiraahdaan unilateral declaration ma soconaysee in xataa la sameeyo maxaan ku yiraahdaa referendumka hadda uu weydiiyay Cabdixakiin referendumkaas dabcan haddii noocaasoo kale oo u dhacayo waa in Soomaaliyada xamar maaha yacni inay ayadu gasho maaha laakiin inay marka wada hadal arrintaa ka yimid ay ku timaado South Sudan iyo Eritrea saasay ku dhacday adduunyaduna saasay hadda u dhaqantaa marka waxaan rabnaa inaan isla garanno anu kulley dhowr jeerna hore waanu iri hadda ka hor dood Maxamed Cabdullaahi Cumar oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa iyo Cabdi Samatar yaan la galnay waxaan isleeyahay hal ayay u dhamaanaysaa annagu haddaan nahay Soomaaliya dawlad ma dhisi karno oo xamar kaliya kama dhisi karno taariikhda 30 sano oo la soo dhaafayna Soomaaliland oo maqan dastuurna ma samayn karno electionna ma samayn karno waxba ma samayn karno ciidanna ma samayn xaqiiqada marka loo hadlayo dawladdeena xamarna malaha saas inay u fahamsantahay ama ku baraarugsantahay ma ogi laakiin lisaanul xaalkeeda kama muuqato Soomaaliland intay iska tagto inay caalamka annaga waa baxnay oo dawlad xor ahaan nahay dee lagama soo yeelin 30 sano saa ku socotay mar waxaan iri oo waliba reer Muqdisho qaar badan ay kula dagaalameen maybe this state-ka aan haysano aan Hargeysa ka soo dhisno haddii loo baahdo ama aan meel kale ka soo dhisno laakiin this is tanan haysana state la'aanteedna lama noolaan karo oo maanta waxa waaye dhalinyarada meel kasta joogtay adduunyada yani adduunyadii kugu qasbaysa inaad state haysato marka waxaan isleeyahay yani arrinta ayada ah in dhaqanka xamar yaala iyo dhaqanka Hargeysa yaala ee madaxdu oo isbedelo anigu Mustafa sidoo sheegayna waa qabaayo xorriyadii iyo midnimadii himilada u ahayd ummadda Soomaaliyeed weli waxaan qabaa inay wax sax oo fiican yihiin haddii elite-kii siyaasaddu ka shaqaysiin waayeen
dee kuwanaa la rabaa inay ka shaqaysiiyaan taasoo aad baad mahadsan tahay waxaan